Ma ogtahay in 90% weerarada cyberka ah ee guuleystaa ay ku bilaabmaan social engineering? Ku soo dhawow caalamka hagarinta maskaxda bini'aadamka ee social engineering. Muqalkan waxaanu si faahfaahsan ugu baran doonaa waxa uu yahay social engineering-ku, qaybaha kala duwan ee social engineering-ka, sababta uu social engineering-ku ku noqday mid si weyn ugu guuleysta weerarada hacking-ka, iyo macluumaad kale oo dheeraad ah aynu ku baran doonaa Muqalkena maanta. Social engineering waxaan ku qeexi karnaa in la bedelo maskaxda qofka lagana yeelo mid ku siiya xog kasta uga baahan tahay. Tani kuma xidhna tiknoolajiyad, balse hackersku waxay ka faa'iideysanayaan dabeecadaha aadamaha ku abuuran sida naxariista, wax cusub raadinta ama curiosity-ga, iyo aaminaadda. Aynu baranno qaar ka mid ah qaababka uu ku yimaado social engineering-ku. Phishing kan waxaan filayaa marar hore ayaan tilmaamnay wax ku saabsan. Phishing waa habka ugu caansan ee loo sameeyo social engineering-ka, waana in lagu soo diro message sida email ama wax la mid ah, kaasoo uu la socdo link ay hackersku ku sii diyaariyeen inaad ku soo dhacdo sidii dabin oo kale. Haddaba message-kaasi waxa uu muuqaal ahaan u eg yahay mid sax ah oo aanad ka shakiyeyn, sida mid u eg inuu ka yimi banki aad lacag dhigato oo lagu dhaho hubi akoonkaaga oo geli lambarkaaga iyo passwordkaaga, kadibna sidaas laga jabsado akoonkaagii. Ama inuu ka yimaado shirkadda aad u shaqayso oo lagu soo diro message ah geli ID-gaaga iyo passwordkaaga, sidaasina loogu soo dhaco database-kii shirkadda. Almuhim, phishing in lagu khiyaameeyo waxaad hor u taqaanay oo la soo bedelay. Qaabka labaad ee isna aadka u caanka ah ee social engineering-ku waxaa lagu magacaabaa pretexting. waxaana ugu jira qaab ah in lagu soo waco oo hackersku iskaga kadhiga inay ka socda shirkad weyn sida shirkadda u shaqayso kale, oo waxay ku sheegi karaan inay yihiin qaybta IT-ga ee shirkaddaasi, ayna u baahan yihiin inay hubiyaan ID-gaaga. waxayna ku dhahayaan ID-gaaga iyo passwordkaaga geli linkaan ku soo dirnay, amaba waxay samayn karaan inay ku dhahaan lacag ayaad ku guulaysatay iyo waxyaabo noocaasi oo kale ah. waana mid ku badan bulshada Soomaaliyeed. iska fahan markaad maqasho waxbaad ku guulaysatay iyo noocaasi. qaabka saddexaad ee social engineering-ku ku dhici karaa waa baiting. iskuurayso adigoo waddo maraya, laptopkaagana sita ama guriga kaga yimi. haddii aad aragto USB drive ama flash ay ku qoran tahay xog sir ah ama shirkad hebel oo kale, ma qaadan lahayd oo flashkaasi ma gelin lahayd kombiyuutarkaaga si aad u fiiriso waxa ku jira. mar labaad ka fikir, waxay noqon kartaa sidii bom oo kale kugu qarxi kara. ma fiicno inaad kombiyuutarkaaga geliso USB drives aadan garanayn meel ay ka yimaadeen. habkaas baitingkuna qaabkaasi ayuu shaqeeyaa, ah in qofka lagu soo dabo wax xiiso badan. kaliya tana ma aha USB driveska ee wuxuu noqon karaa software iska lacag ah oo kale. waxa ugu daran ee aan la yaabo waa dhalinta raadiska ama malwareska. bro, software sax ah ayaa halis tahay oo aan lagu kalsoonaan karin karaagiisa. sidee ugu fakeri kartaa inaad kombiyuutarkaaga ku shubto raad aadna u fili kartaa inaad ku isticmaasho oo ka faa'iidaysato? xitaa waxaad arkaysaa kuwa aan virtual lab haysan oo operating systemkoodii caadiga ahaa ee hoostiga ahaa raba inay ku isticmaalaan raad ama malwares kale, iyagoo raba inay kasoo degsadaan internetka kadibna ay si fudud u isticmaalaan. mar labaad ka fikir arrintaasi. qaabka afraad ee social engineering-ku isticmaalaa waa quid pro quo, oo ah in hackersku ay ku soo bandhigaan isku beddel oo kale. waxay ku dhahayaan xogtaasna si adna beddelkeeda kan qaado. tusaale ahaan, software freemium ah, yacni leh qayb free lagu isticmaalo iyo qayb lacag ah oo ay ku jiraan features advance ah oo kale. ay ku dhahayaan softwarekaas qaybtaas lacagta ah si free ah ayaa lagu furayaa, igeli xogtaada halkan sida emailkaaga oo kale ama xog muhiim ah, kadibna haddii aad geliso sidaasi ayaad ku khasaartay. iska ilaali noocaasi isku beddelka beenta ahna. intaas haddaynu ka nimaadno qaar ka mid ah wejiyada uu ku iman karo social engineering-ku. haddaynu eegno qaar ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweynah ee caalamka ka dhacay kuwaas oo sabab u ahaa social engineering-ku, waxaynu ka xusi karnaa dhacdadii Twitter hack oo dhacday 2020, kuwaasi oo la helay xogta macaamiil aad u badan oo ku xidhnaa barta Twitter-ka. waxaana laga soo galay kadib markii social engineering lagu sameeyey qaar ka mid ah shaqaalaha shirkaddaasi. waxaa iyaguna xusid mudan weerarkii lagu qaaday shirkadda Target oo ah store iibiya alaabooyinka lehna qayb online ah. haddaba 2013 in ku dhow 40 milyan oo ka mid ah macaamiisha shirkaddaasi ayaa xogtoodii dibadda u baxday, sababtuna ay ahayd social engineering lagu sameeyey qaar ka mid ah shaqaalaha shirkaddaasi iyo systemkaasi oo ahaa mid jilicsan.
haddaba maxaa ka dhigaya social engineering-ka mid aad ugu guuleysta weerarada hacking-ka? sababahaasi waxaa ugu waaweyn in social engineering-ku uu la falgelayo bini'aadamka. si guud bini'aadamku way is aaminsan yihiin, weliba haddii qofku iska kaa dhigo uu ka socdo shirkad oo kale waxay u badan tahay inaad aaminto. sidoo kale tekniikiska qaar sida baitinka oo kale waxay ku shaqeeyaan xiisaha iyo rabitaanka bini'aadamka ee ah inay wax cusub ogaadaan. social engineering-kuna uma baahna qalabo kale iyo tiknoolajiyado badan. mar kasta ood qofka ku qancin karto inuu ku siiyo xogta, oo mar kasta aad heli karto xog aad u badan iyo macluumaad badan oo sir ah. ugu dambayn aynu baranno sidaad iskaga ilaalin karto social engineering-ka. marka koowaad waxaad xasuusnaataa in social engineering-ku yahay arrin psychologiyadeed, dadkuna ay ku kala duwan yihiin falcelinta ay ka samaynayaan arrimaha psychologiyadda. si guud ka taxadir linkyada aad ku dhufanayso ee aadan aqoonta u lahayn, kuwaasi oo laga yaabo in cidi ku soo dirto ama adiguba aad ku aragto baraha kala duwan ee bulshada. haddii aadan ku kalsoonayn meeshaasi, just ha taaban. waxaa muhiim ah in haddii cid aadan garanayn ku weydiiso xogaha sirta ah sida password ama email inaad hubiso oo aadan markiiba xogtaasi bixin. sidoo kale ka taxadir inaad kombiyuutarkaaga aad geliso waxyaabo aadan garanayn. in cid kale gelisona iska ilaali, oo mararka qaar waxaa laga yaabaa in adigaan ogeyn qof kale isticmaalo laptopkaagii oo gashto waxyaabo kale. muuqaalkeena maanta intaas ay ku egyahay. waxaan rajeynaya isla fahanay social engineering. ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto lana wagta asxaabtaada si ay uga taxadiraan social engineering-ka. mahadsanid.